bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan cashirkii koowaad oo aynu ku baran doono sida loo sameeyo user inagoo isticmaalayna daaqada loo yaqaano cmd. cashirkeenu waxuu ku saabsan yahay labada unit waxa weeye sida loo sameeyo waxuu ku saabsan yahay sida loo sameeyo halkan kuma qorno sida loo sameeyo user iyo ka labaad oo ah sida loo delete gareeyo adoo isticmaalaya daaqada cmd kuna sameynaya daaqada cmd. marka cashirkeeni aynu gudagalno waxaan tegaynaa computerka, waxaan taabanaynaa start, waxaan ku qoraynaa cmd baan ku qoraynaa. sidaad aragtaan waa tan inoo soo qabatay. markaas right click baan leenahay oo sida haddaynu amarada qaar bay diidaa daaqada la yidhaahdo cmd. marka awoodda ugu badan baynu kusoo kicinaya run administer, awooddaada ugu badan kusoo kac. yes baynu leenahay waatan soo kacday, sidaasay inoogu muuqanaysaa. marka waxaynu halkaa ku qoraynaa markasta inoogu soo kacdo net user baynu ku qoraynaa, net user iyo magacii aada u bixinaysa userkaaga. anigu caseyr baan ula baxayaa, magacayga un baan ula baxayaa. hore uga kac, halkaa space taabo, waxaa halkaa gelaya markaas passwordkii 1234 ayaan passwordkayga ka dhigtay. hore space taabo, parameter add baad leedahay. marka waxa weye net userka magaciisu yahay caseyr, passwordkiisuna yahay 1234 add baad leedahay, igu soo dar. marka inter baad leedahay. sida qoraalkan inoo sheegay dee command complete successful wuxuu ku leeyahay si dhammaystiran ayaad ugu guuleysatay commandigaagii. markaas iminka waxaan eegaynaa inuu bal ka mid yahay userada ku computerku leeyahay. inagoo marka hore aan iska delete garayno si aan idii tuso inaanu kanaynu hadeer ku jira aanu hore ugu jirin computerka. net user sayr del. hadaba waxaanu eegaynaa userada computerka ka samaysan ee gudihiisa ku jira. net user baynu qoraynaa kaliya, net user kaliyaynu qoraynaa, kadibna inter baynu leenahay. inta baa ka samaysan marka u horeysa. inagoon keenii hore iska delete garaynay waxaanu eegaynaa marka hore inta ka samaysan. administrator baa ka samaysan, administratorkaas ka samaysan default user caseyr bc oo kanaynu isticmaalayna cashar ka dhigayna ah ee computer ku furan yahay, kasti oo inta badan computerka iska leeyahay, iyo default account oo inta badan ah userada computerka iskala socda. marka aynu dib ugu noqono sameyno userkeenii. waxaan leenahay net user oo inagii delete garaynay marka hore. net userka layado caseyr, passwordkiisa 1234 parameter del. hadda intaba spaceyaa udhexeeya, baladeeg spaceyaa udhexeeya. waxaan leenahay iminka net space user space magacii aada ula baxaysay passwordka, magacaad ula baxaysay space passwordkii 1234 space parameter waa calaamada saa ujeegtaa. add baad leedahay, add iigu soo dar. marka waxa weye net userka loo magaciisu yahay caseyr, passwordkiisuna uu yahay 1234 parameter add iigu soo dar, inter baad leedahay. markaa
sida qoraalkan kuu sheegayo iminka waa uu inoo samaysmay userkaasi waynu isticmaali karnaa computerkeena inuu kusoo geli karnaa. bal marka aynu eegno haddaba inuu ka mid yahay useradii oo uu kusoo biiray waynu ku arki doonaa insha allahu tacaala. waa kan iminka intan kale waa intii inoo samaysmay casir b c gana ku khaldin waa kanaan isticmaalayo marka horeba kan baynu hadeer samaynay siday halka sare kaaga muuqata waa kaa kaynu samaynay. waxaynu ku xijin doonaa cashar yar oo gaaban isaguna sida loo dhalid garayaa waxba waa wax yar oo basic ah oo iska fudfudud. marka aynu eegno isagana sida loo dhalid garaynayo net user kalayada magaciisa iyo casayr hadda khaldin halka magacii wayna taftiisa qortaa layado casayr xalada space parameter del badlada del macnaha waxay la mid tahay delete oo kale laakiin aan dhammaystirin ee del kaliya ka dhig kadibna enter dheh. sidoo ku sheegay qoraalkan hoose iminka waxaad ku guuleysatay inaad dhalid garayso kii hore aad samaysay inaad dhalid garayso. marka iminka waxaynu eegi doonaa bal inuu ka mid yahay aynu ka heli karno iyo inuu weli ku jiro iyo inuu ka baxay ayaynu ka eegi karnaa. net user adoo qoraya isla markaana maxay leh net user adigoo qoraya net user adoo qoraya net user kadibna enter leh. iminka kuma jiro casir b c baa ku jira aan kan isticmaalaynay markaa kuma jiro. casharkan intaas ayuu ku saabsan yahay. taniya intaynu kulmi doono casharkan casharka ku xiga waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaana casharkadii la socodsiinayay aniga oo injineer casayr aadan salamaan. casharada taxanaha waxaad ka heli kartaa barta youtube-ka aanu ku leenahay ee saac software la yihahdo. adigoo youtube ku qoraya saac software waxay kuusoo dhigaysaa markaa casharada ku jira saac software. kanina waa casharkii koowaad ee aynu ku baranaynay daaqada c m d waxyaalaha lagu sameeyo iyo waxyaabaha ay qabato. inta badan daaqadan c m d waa daaqad dhanka security-gana aada wax fara badan uga qabata computerkana waxyaabo kale oo aanu computerka dhinacyada kale ka awoodi karin iyadoo awood u leh inay samayso. marka casharkiina intaasunbuu inoogu soo xidhnaanaya intaynu casharka labaad ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal.